kusoo dhawaada wararka ciyaaraha maanta wararka aan idiin helno waxaa ka mid ah xulka Argentina Peru koobka Ameerika isreebka dalka Qatar ka dhici doono koobka adduunka. Argentina Peru ayaa hal ewer uga badisay xulka Peru, goolkaasna waxay ka heshay Lautaro Martinez, halka Chile Venezuela ay 3 ewer uga agaatay xulka Venezuela. sidoo kale xulka Brazil Uruguay oo ah goolkii ugu weynaa oo la ciyaaray xalayto, kulankaas ayaa iska hor yimid Luis Alberto Suarez Neymar Jr. ayaa ka badshay Luis Suarez waxaana ugu badshay 4-1, halka sidaas goolasha ay ka kala heleen Neymar Jr., Robinho iyo Gabriel Barbosa, halka xulka Uruguay ay goolka ka heleen Luis Alberto Suarez.